dhammaanna waa fadhiyaan oo ugu horeeyo samafale maxamed caafi oo aadaad u taqaanaan oo isla asaga ninkii la yidhaahdo cabdidaab oo asla samafalayaasha ka mid ah waxaa ka mid ah dhaqaatiirtii soomaaliyeed oo isaga timid meelo badan oo ay ka mid yihiin oo ugu horreeya doctor cabdirasaaq oo uu ku xigo doctor aadan gomey oo ka kala yimid dalka iyo dibadda oo u socday hawshaan ayadaa muddo dheerna ka shaqaynayay iyagana aad baan u salaamaya halkaas ag waxaan isugu nimid waa xafladii xiritaanka ahayd ee fadxi gargaar aad baan ugu madcelinayaa ragga howlwadeennada oo dal iyo dibad jooga dhaqaatiirta qiimaha badan sida wanaagsan oo dadka shacabka odayaasha iyo haweenka ay sheegaayeen oo ay ka hadlaayeen anagana markhaati ka ahayd in lacag la'aan wax loogu qabtay loo shaqeeyey xanuunno fara badan laga daweeyey oo qarash fara badan loo geli lahaa oo ay ku aadi lahaayeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba runtii waa arrin guula weeye waa arrin aan ugu ducaynayno waa arrin mar walbaan uga mahadcelinayno waxaa weeye fadxii gargaar ma aha hay-addan iloobi doonno ma aha waa mid qalbiyada gobolka gado ku weyn maxaa jira dadka halkaa fadhiyo iyo dad kale oo maqan dhaqaatiirta waxa ay ka qabteen arrin aad iyo aad aan loo soo koobi karin bay ahayd waxaan u maleynayaa qabiilka ay sameeyeen qabiilka ugu qarashya lacag fara badan wey aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa samafalayaasha hawsha ayadaa hogaaminayo iyo dhaqaatiirtao iyo dadka dibadaha ka jooga oo hawshaan ayaga gacanta ka geystay waxaan codsanaynaa fadxi gargaar wixii aad ugu soo dhiibteen waxbay ku dareen dhaqaatiirta waxbay ku dareen samafalayaasha waxbay ku dareen waxaa weeye wax awooddooda ka baxsan bay sameeyeen xaqiiqdii oo halkaana ku soo istaagna weysan waxaan codsanaynaa oo aan rabnaa inaad intaan nalo ku ekayn dhaqdhaqaaqa inaad sii wadaan oo aad gacan la siiyo hadday tahay hay-adaha samafalka dowladda soomaaliya dadka u dhashay deegaanka jubbaland gobolka garow iyo dadka soomaaliyeed oo iyagana ku yaqaano inay aad isu fahmayaan waxaan rabnaa fadxi gargaar in gacan la siiyo way mudan yihiin xaqiiqo weeye waxaa weeye hal bil ay wax yar oo ay joogeen deegaanka baardeera waxa weyn bay ka qabteen annagu shalaa nimid waxyaabihii aan ku soconna qayb bay ka ahaayeen inaan ku mahadcelin maxaa jira wanaagooda halkaasaan ka joogi weysay waxaana weeye qofka haddii walaalka oo ku qabto waa in loo mahadceliyo weye waa xadiiska nabiga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan ku soo dhawaynayaa waxaan rabaa fadxi in gacan la siiyo meel walbo hadday hay-adaha tahay hadday dowladda soomaaliya tahay hadday shacabka soomaaliya tahay fadxi gargaar waxa weyn bay qabatay gacanna la siiyo dadka gobolka u dhashay waxaan leeyahay dadka gobolka u dhashayo fadhiga ka kaca la xiriira hay-adaha idiin shaqeeyo sida gargaaro midka wax dhiiban rabo ninkii wax soo dhiibanayo ninkii wax sadaqaysanayo waa kuwa dhaqaatiirtii dal iyo dibad ka timid gacan ha la siiyo soo kaalmeeya dadka shacabkana siday tahay bay u geynayaan hay-adaha kale oo ayagana deegaanka u dhashayna gacan ha la siiyo dadka maanta abaartaa hayso abaartaas jirto oo dalka ka dhacdayna maanta waxay u baahan yihiin dadkii gobolka gargaar bay rabaan gargaarka asagaana maanta inaad gacan siisaan ayaa
maanta waad u jeedaan roobkii dayrtu waa dhammaaday maanta waxaan u malaynayaa waxaa bilowda jilaalka waxaan u malay waad la socotaan ilaahay haddee raxmadiisa kamaan hanquusan saa waxaa laga yaabaa caawa inuu isbeddel ku dhaco laakiin ibni aadam baa nahay inta garashada dada haddaan ka hadalno abriil yaan u malaynayaa 20keeda yaa roobka u soo horaysa abriil 20keeda dadka maanta saar ku nool noloshooda say noqonaysaa war dadkaan gurmad bay u baahan yihiin gargaar degdeg ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in si degdega wax loo fadhigaa laga kaco fadhigaa laga kaco dowladda soomaaliya fadhigaa ka kacdo oo u horreeya madaxweynaha waa in gurmad degdega lala soo gaaraa dadkaan gobolka kale ku sugan qaasada degmada baardheer ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa iyaguna inay fadhiga ka kacaan oo lagu soo eego ilgaar gobolka xaalkiisa meel adag buu maraya waxaan markaa mahadnaqaas mar walbaan fadxi gargaar ugu mahadcelinayna waxa weeye ayadoo intaasoo dhib ay jiraan dadkii xanuunadii waxa ay ku safraan iyo dhaqaalo midna aanu haysan oo masaakiinta ah dadkii kaalmeeyey weeye maantana alxamdulillah waad maqlayseen codkoodii caafimaad iyo wanaag iyo reyrreyn baynu ku hadlayn ilaahay marka waxaa weeye waxaan ka baryaynaa ayaguna ajar iyo xasanaad allah ka siiyo annagana waxaa weeye waxaan la garab taagannahay ducada iyo inaan u qaydinno u hadalno oo waxa ay qabteen oo saxda aan ka sheegno goob kasta oo aan joogno inaan caddayno haddee wax la qarin karana maaha marka waa inaan isu sheegno waxaan rabnaa marka deegaanka baardheere waxaan aad iyo aad marka ugu mahadcelinayaa maamulka guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkii xubnihiisa kale iyo dhammaan qaybaha bulshada oo kala duwan sida wanaagsan oo shalay baa lagu soo dhoweeyey gegada diiwadaha ee magaalada baardheere sida wanaagsan oo sharafsanayd aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa aniga iyo waqtigayga insha allah waxaan rajaynaynaa wax badan in la hagaajin doono dadka barakacayaasha oo deegaankan maanta ku sugan ama deegaanada kaleba 5 qodob oo muhiimada oo amarkaasi ay u baahan yihiin koow waxay rabaan inay helaan biyo laba waxa weeye waa in la helo cunno degdega oo lala soo gaaro saddex waxa weeye dadkii ma haystaan goob wanaagsan ay degaan waa inay helaan hoy degdeg emergency-ga in loo helo waa muhiim weeye waana wada arrintaas ayadaa qoladii hay-adaha aan kula kulannay ninkii madaxa mashaariicda ahaa oo aan kula kulannay garbaaraya arrinkaasna waa kala hadalnay dadka ayaga haddii intaa la gaarsiiyo roob lagu simana waxay u baahan yihiin in goobahoodii lagu cesho xoolana loo helo xoolana loo iibiyo dadka ayaga marka intaasoo barnaamijkii horumarinta ah sida gobolka uga socdeen inuu ka socdo kan emergency-gaana in si degdeg wax looga qabto saas waa qorshihii aan ku heshiinay waana sugaynaa insha allahu tacaala qaylo badanna waa noo maqan tahay waxaan rajaynaynaa guul laakiin waxaasoo dhan waxaa nooga weyn gacanta ilaahay baa nooga weyn gacanta ilaahay baa nooga weyn ilaahay isagaa boqor ah kuwa roobka uu siiyey iyo annagoo roob la-aana labadaba ilaahay isagaa naamurtay